waxaan goordhow aynu ka wareysanay Professor Cabdisalaan Axmed Malla oo ah bare kulliyadda siyaasadda ahna falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. anigu waxay la tahay iyaga dhexdooda ayaa niyadooda aan iswaafaqsanayn. waxaa yeelay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat. dadka acmaashooda oo dhan waxay kasoo fushaa xagga qalbiga, qasadka oo dadku ay leeyihiin ayay ku xiran tahay. waxaan isleeyahay ujeedooyinka ay rabaan ayaa kala duwan oo daacad aysan ka ahayn. waxaa loo shaqeynaya waa qaranka. dalka Soomaaliya waa hal dal, dowladda federaalka xukunta oo korka xukunta, iyaguna dowlad goboleedyo ayay xukumaan oo dowladda federaalka hoos yimaada. marka mushkilada hadda jirto wax u baaqanayaan waxa weeyaan dhinac iyaga dhexdooda ayaa iskhilaafsan. waxaad moodaa inay midaysan yihiin daahirka, inkastoo madaxweynaha Hirshabelle uu waadhow ka soo baxay. waxaad moodaa daahirka inay isku mowqif yihiin, laakiin waqulubuhum shatta. ilaahay quraanka ku sheegay dadka qaarkood markaysan daacad ahayn quluubtooda ayaa kala tagtagsan, ujeedooyinkooda tagtagsan, isma waafaqayaan. marka aan isla qaadan maayaan. dib u dhacana waxaa keenaya khiyaanada noocaasa ayaa keenaysa oo iyagu ay ku sameynayaan naftooda iyo midda qarankaba. marka waxaan isleeyahay arrimaha sababta ah waa wax ka imanaya xagga qalbigooda, iyadoo doorashooyin ay kusoo wajahan yihiin, ayagoo walwalsan oo runtii aada uga baqaya in meesha ay ka wareegaan oo maaragtay lagala wareego oo dad kale ay kusoo baxaan, iyaguna ay rabaan inay mar kale ay meeshii joogaan oo ay xukumaan, iyo iyagoon daacad ka ahayn ujeedooyinka iyo mowqifyada ay kala qaadanayaan. taas baana sababaysa mar walba dadku inay iskhilaafaan oo isku jiha noqon waayaan. ilaahna wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu. hakala tegtegina leeyahay ilaahay kitaabkiisa idin midaynaya, ilaahay jidkiisa idin midaynaya, israaca. ikhtilaafku waa diiday muxuu qur-aanka, sunnadana way diiday in inta la iskhilaafo la kala tago, ama iyaga dhexdooda ha noqoto ama dowladda federaalku ay khilaafaan oo sharci darro ah. maxaa jira iyaga mas-uuliyadda dalka haya oo maamulka sare ee qaranka waa hal mid weeye. iyagu shaqo kuma laha inay la qabsadaan awoodda, mana la ogola diiniyan. marka taa waxay keenaysaa in markay madaxda sare khilaafaan, iyaga haddana dhexdooda ilaahay iskhilaafiyo, aysan hal jiho iyo hal direction iyo hal go-aan aysan wada qaadan karin. taasaana dhibka keenaysa. waayahay marka laga soo tago hadda khilaafka iyo kala go-a golaha iskaashiga ee maamul goboleedyada ka dhexeeya ee waare uu ka noqday go-aankii ahaa in dowladda Soomaaliya uu wada shaqayntii kala dhaxaysay waakii, haddana dhanka kale waxaa jirta khilaaf guud oo u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. marka maxaa xal u ah khilaafkan ragaadiyay ama hareeyay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe? anigu waxay la tahay run ahaantii khilaafkan waa waxa la yidhaahdo man-made maxay ahayd disagreement oo kas iyo ulakac loo sameeyey in la khilaafo amarka dowladda federaalka. anigu waxaan aaminsanahay federaalka anagu aan qaadanay aslanba dowladda federaalka ayaa dalka oo dhan mas-uul ka ah. arrimaha dibadda, arrimaha lacagta, dastuurkana way ku qoran tahay. arrimaha maaragtay amniga guud ee dalka iyo xuduudihiisa, arrimaha maaragtay customiska iyo waxyaabaha la xiriira maaragtay furdooyinka, waxaasoo dhan waxaa ka mas-uula dowladda federaalka. dastuurka qarankana way ku qoran tahay.